kulanti wacan saaxiibayaal meel walba daafaha caalamka ka joogtaan kusoo dhawaada wararka Soomaalida ee channelkeena Captain K qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah midowga musharaxiinta ogolaha wada tashiga qaran ku eedeeyay dib u dhaca doorashada dalka ciidanka ahlu sunna oo iskaga baxay Matabaan iyo wararkii ugu dambeeyay ciidamo ka socda booliska AMISOM oo maanta laga dajiyay magaalada Baraawe dagaal culus oo ka socda duleedka magaalada Muqdisho intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon wararka Soomaalida ee channelkeena fadlan daawade haddii ay tahay markii kugu horeysay channelkeena subscribe gambalelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya like saar si uu dad badan u gaaro wixii fikrad ahna commentiga noogu reeb mahadsanidin aynu ku bilownay golaha midowga musharaxiinta ayaa waxay walaac xoogan ka muujiyeen dib u dhaca mar kale ku yimid doorashada Soomaaliya iyadoo oo jadwalkii ugu dambeeyay ee la soo saaray in 10 Oktoobar oo shalay ku beegneed la doorto madaxweynaha Soomaaliya qoraalkan ka soo baxay midowga musharaxiinta ayaa waxaa lagu sheegay in dib u dhaca doorashada ay sababtay in dalka uu galo firaaq dastuuri ah iyo xaalad hubanti la'aan ah taasoo saameyn la taaban karo ku yeelatay xasiloonida dhaqaalaha iyo amniga dalka sidoo kale midowga musharaxiinta ayaa waxa ay sheegeen in ay ka xun yihiin in tiro 3 jeer dib loogu dhaco jadwalka doorashada ee lagu heshiiyay iyadoo aan shacabka Soomaaliyeed loo cadeyn sababaha keenay dib u dhaca sidoo kale midowga musharaxiinta waxa ay sheegeen inay ka walwalsan yihiin in aysan ilaa haatan shacabka u cadeyn xilliga sida saxda ah ay doorashada aqalka hoose ee Soomaaliyeed u qabsoomayso hay'adaha dawladda federaalka oo muddo xileedkeedu sharciga ahaa dhamaaday ayna keentay hubanti la'aanta siyaasadeed oo sababtay in hiddidiiladii shacabka yaraato mugdina hareeyo maalgashigii ganacsi heshiisyadii ganacsiga ahaa kaalmooyinkii dhaqaale deyn cafinta iyo matalaadii Soomaaliya ee fagaarayaasha caalamiga ah dhinaca kale wararka laga helayo degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in saaka ciidamada ahlu sunna ee dhawaan la wareegay degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ay iskaga baxeen halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ay ku sugnaayeen wararka ayaa waxay sheegayaan in ciidamada ahlu sunna oo wata dhowr gaari oo kuwa dagaalka ay fariisin ka sameysteen deegaanka Laba Hiiraan oo ku yaala xadka kala qeybiya Hiiraan iyo Galgaduud halkaas oo ay ka dhigteen kastamka canshuuraha ay ku qaadi doonaan ciidamada ahlu sunna ayaa markii ay la wareegeen degmada Matabaan waxa ay canshuurta gaadiidka uga qaadi jireen kastamka degmadaasi hase yeeshee waxaa maanta canshuur ku qaadaya maamulka degmadaasi Matabaan saraakiisha ciidamada ahlu sunna wali wax faahfaahin ah kama bixin sababaha keenay in si nabad ah uga baxaan degmada Matabaan oo kamid ah meelaha ay ku xoogan yihiin ururka ahlu sunna ciidamo ka socda booliska AMISOM ayaa la geeyay degmada Baraawe waxaa maanta degmada Baraawe oo ah xarunta rasmiga ah ee maamulka Koonfur Galbeed la geeyay ciidamo ka socda booliska howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ciidamadan oo hore Muqdisho loogu tababaray ayaa waxay ka qayb qaadan doonaan sugidda amniga goobta dhawaan ay ka bilaabanayso doorashada xildhibaanada golaha shacabka qaybta ka imaanaysa deegaanada Koonfur Galbeed dhawaan waxaa degmada Baraawe gaaray xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal kuwaas oo kormeer amni ku sameeyay goobta loogu talagalay inay ka dhacdo doorashada golaha shacabka waxaana guddiga ay sheegeen in Baraawe noqon doonto goobta ugu horeysa ee laga bilaabo doorashada golaha shacabka Baraawe ay israasaaseen kooban ku dhaxmartay ciidamada ammaanka iyo maleeshiyaad hubeysan oo weeraray hotel ay ka socotay doorasho xubno kamid ah golaha deegaanka Baraawe taasoo ay tabasho ka muujiyeen qaar kamid ah beelaha Soomaaliyeed wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan dhinaca deegaanka Gubadley ayaa sheegaya in saaka dagaal uu u dhaxeeyay ciidamo ka wada tirsan militariga dawladda Soomaaliya oo ka qarxay halkaasi dagaalka ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu u dhaxeeyo ciidamada Korneyl Sani Cabdulle iyo kuwa kale oo taabacsan Cismaan Xadoole oo isna kamid ah saraakiisha militariga Soomaaliya kana howlgali jiray gobolka Shabeellada Dhexe wararka ayaa sheegaya in dagaalka xoogiisa uu ka dhacay halka loo yaqaan xaafadda Xaawa Casir iyo agagaarka suuqii hore ee xoolaha ee xariga dheer xaaladda ayaa haatan aad u kacsan waxaana wali ishor fadhiya ciidamada labada dhinac ee ku dagaalamay halkaasi sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in iska horimaadka uu geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac iyo dad shacab ah dhinaca kalena Puntland ayaa soo saartay go'aamo lagu sugayo amniga doorashooyinka wasiirka amniga dowlad goboleedka Puntland ayaa shir gudoomiyay kulan diiradda lagu saaraya amniga doorashooyinka
dowladaha hoose ee degmooyinka Eyl, Ufeyn iyo Qardho kuwaas oo loo ballansan yahay in dhawaan lagu qabto. Shirka waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha guddiga ku-meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland iyo wasiirka amniga gudaha maamulka Puntland. Sidoo kale shirka waxaa ka qayb ahaa saraakiisha sarsare ee amniga kuwaas oo ay ka mid yihiin la taliyaha dhanka ammaanka ee madaxweyne Deni, taliyaha booliska Puntland, taliyaha ciidanka difaaca Puntland, agaasimaha waaxda amniga hay'adda sirdoonka Puntland iyo saraakiil kale. Qoraalka ay wasaaradda amniga Puntland ka soo saartay shirkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in isfaham iyo guul uu ku soo dhamaaday isla markaana laga gaaray go'aamo lagu sugayo amniga doorashooyinka dowladaha hoose ee dhawaan laga qabanayo. Ugu dambeynna xubnaha ka socda guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa kulamo ka wada Beledweyne. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeste Cismaan ayaa aqalka madaxtooyada gobolka Hiiraan casho sharaf iyo soo dhaweyn ugu sameeyay xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee gaaray magaalada Beledweyne. Munaasabadda waxaa ka qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka, kan degmada Beledweyne iyo qaybaha bulshada magaalada. Mas'uuliyiinta ka hadashay munaasabadda ayaa si wadajir ah u soo dhaweeyay guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed una ballan qaaday inay kala shaqayn doonaan habka ugu fudud ee doorashada xildhibaanada aqalka hoose lagu qaban karo Beledweyne isla markaana ay la shaqayn doonaan guddiga. Gudoomiyaha gobolka ayaa guddiga inta ay joogaan Beledweyne u ballan qaaday inay ka maamul ahaan ay la garab taagan yihiin wada shaqayn iyo daahfurnaan si loo gaaro higsiga iyo himilada doorasho nabdoon sida ay uga dhici lahayd Beledweyne. Xubnaha u hadlay guddiga ayaa maamulka iyo bulshada uga mahadceliyay sida ay u soo dhaweeyeen si gaar ah gudoomiyaha gobolka Hiiraan, iyagoo ballan qaaday in si guud iyo si gaar ahba ula kulmi doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayna dhageysan doonaan fikradahooda ku aadan in doorashada xildhibaanada aqalka hoose lagu qabto Beledweyne iyo habka wadajir ee lagu wajihi karo doorasho nabdoon. Guud ahaan waa naga intaa wararkii Soomaalida ee aad ka daawanayseen channelkeena Captain K. Fadlan daawada haddii ay tahay markii kugu horeysay, subscribe dhe gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela wararka iyo warbixinadeena. Tan iyo intaan ku kulmi doono warka xiga, sidaa iyo nabadgelyo.